بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 735 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المختفي والمختفية. رواه البيهقي في السنن الكبرى والحديث صحيح. إخوة الإسلام والإيمان، maanta taariikhda islaamka ay tahay 24 bishii labaad safar sanadka 1447 isla markaana waafaqsan 18 bishii sideedaad sanadka 2025. waxaanu ku jiray kitaabkeena ugu magac daray almuntakhabu min saxiixi sunan nabawiya wa ziyaadaatuhu. ayaanu ku jiray mawaadiicdiisii kala bedelayd kala duwanaa, khaasatan mowduucii waxaanu muddo kusoo jiray ku saabsanaa acmaalun tuujibu lisaaxibiha allacna. acmaasha iyo dunuubta iyo afcaasha qofka hadduu sameeya lacnad rabbi usoo jiidaysa uu ku dhacayo. shalay xadiidka u dambeeyaanu qaadanay wuxuu ka hadlayay shay noola oo naf ku jirto in meel intii lagu xidho lagu toog barto maaragtay asbaabaha lacnada soo jiida uu ka mid yahay. maanta waxaan qaadanaynaa shay kale oo qariib maaragtay dadka aana maaragtay aada uga warqabin laga yaabo inuu qariib ku yahay, iyo laakiin dhinaca kalena ku tusinaysa diinteenna shaamilnimadkeeda iyo wax kasta inay ka hadasho. shay kaste xaqiisa iyo wuxuu yahay iyo waxa ka ratimi, haddii ajir tahay iyo haddii ciqaab tahay iyo haddii wanaag tahay iyo haddii xumaan tahayba u caddeeyey. xadiidkeennan waxaa soo saaray alimaam albayhaqi kitaabkiisa sunan alkubraa min xadiid ummina caaisha. waxay culimmadu isku qabtaan xadiidka waa mursal iyo ma ahe waa marfuuc. marka sheekh albaan raxmatullaahi caleyh xadiidka wuu saxiixinayaa, saxiix jaamicu sagiir buuna ku saxiixinayaa, raqamka xadiidka 5102 ayuu ku saxiixinayaa. silsila saxiixana saasoo kale weeye 2148 buu ku saxiixinayaa. inta markaan ka gudba xadiidkan macaanida, waa xadiid yaroo kooban wey, laakiin macno culus buu xumbaarsan yahay. ficil aad iyo aad shaniico oo aad maaragtay akhlaaq xumo ah oo qof damiira uu ku dhaqmin qofka sameeya cuquubada ka ratimaysa ayuu noo sheegaya. umuna caaisha waxay leedahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay inuu yidhi: lacana allaahu allaha lacnado almukhtafi walmukhtafiyata, ka isqariya iyo midda isqarisa. maxaa loo jeedaa? annabaash, ka qubuuraha fagta wey. allaha lacnado almukhtafi, nabaashka qubuurta faagta iyo walmukhtafiyata midda qubuurta faagata oo meydka kafankiisa la soo baxda, malcuuniin weeye. mukhtafi iyo mukhtafiya macnaheedu waxay lamid tahay assaariqu wasaariqatu bay lamid tahay, yani tuuga waxadee ninka iyo gabadha tuugta waxada wey. marka mukhtafi iyo mukhtafiya waa nabaashiin wey. nabaash waxaa layihahda ka qubuuraha faagta. qabriga markii saa loo xabaalo ayuu habeenkii soo yaasi, qabrigii buu qodi, meydkii buu kafankii kala soo bixi, markaasuu kafanka gadanaya ama wuxuu doonuu ku samaynayaa. kaasaa mukhtafi sharciga loo yaqaana. mukhtafi iyo mukhtafiya, mukhtafi waxaan loogu bixiyey wuu isqarinaya, mutasatir weeye, hayru mudhirin, mid aan ismuujinin, hayru mukshifin. macnaheedu habeenkii buu yaasi, isha dadka intayna arkaynin buu habeennimo meydka maaragtay iyo qabriga qodi oo kafanka kala soo bixi. leanna maalinimo iyo waqti iftiin oo dadku meelihii marmarhayaan waa la arki. saa darteed bu habeenkii isqarin oo dhuuban, markaasuu qabriga intuu faagta iyuu kafanka kala soo bixi. idan cidda kafanka la soo baxda, meydka kala soo baxda, ama nin ha ahaado ama dumar ha ahaado, nabaash wey. arabiga nabaash baa lagu yahay. marka mukhtafina waa layihahda. marka nabigu wuxuu yihi waa malcuun, ilaahay ha lacnado, raxmadda ilaahay ha ka fogeeyo. ama waa khabaro, waa malcuuninba weyaan, min allaahi baa laga lacnaday, ilaahay baa lacnaday. maxaa yeele waa ficil aad u xun wey. inuu qabri la aasay, inuu intuu qodo oo meydka u dhaco oo iilka tago, meydka banaanka soo dhiga, kafanka uu kala baxo ka qaato, waa akhlaaq xumo weeyaan. marka jazihiisa intaan aakhire la gaadhin waxa weeyaan waa malcuun weeyaan, kabiiro weyn oo aad iyo aad u weyn weeyaan. marka nabigu wuxuu yidhi: lacana allaahu allaha lacnado raxmadiisa ha ka fogeeyo almukhtafi ama almukhtafiya, ka isqariya nabaashka ee qubuuraha faagta,
maarata kafanka kala soo baxee ninka ah iyo walmukhtafiyata midda isqarisa ee nabaashada ee qabriga intay faagato meydka kala soo baxaysa kafankiisa labaduba waa laba malcuuniinoo ilaahay subxaanahu watacaala wuu lacnaday raxmadiisuuna ka fogeeyey idan waa arrin khatara weyn ikhwati fil halka waxay ku tusinaysaa shareecadeennu shaamilnimadka iyo sida waasac u tahay iyo sida wax kasta oga hadasha caqligaadu hadda wuxuu keeni karaa meyd qof faagta horta meyd in la faagto caqligaada ma keeni kara haddiise la faagto xukunkiisu muxuu noqonayaa dhinaca kale haddaan ikhwati fillahi ka istaagno xukunkiisu ninkaa muxuu noqon ama qofka dumarka ee meydka faagtay ee kafankiisa la soo baxday saariq iyo tuug intii laga dhigo gacanta ma laga goyn mase muxuu yahay waa masale culimmada fuqahadu ay ku kala aragti duwan yihiin jamhuur ahlulcilmi almadaahib alarbaca saddex ka mida oo madhabka maalikiga iyo madhabka shaaficiyada iyo xanaabilada iyo jamhuur ahlilcilmi muslimiinta aqlabkood waxay ku tageen sida tuugga loola dhaqmaya loola dhaqano waxaan uu soo qaaday waxa weeyaan haddii uu noqdo wixii gacan lagaga goyn jiray qiimihiisa gacanta laga jarayaa xukmu saariq weeyaana gacanta laga goyn jamhuur ahlilcilmi saasay qabaan ama madhabka xanafiga waxay leeyihin may gacan laga goyn mayay leeyihin meesha laisku qabsadana waxaa weeye xoolaha qofka markii laleeh wuu xadayo gacanta laga goynayo xirzul mithli horta xoolo milkiyad ku jira waa inay cid leedahay haddana waa inay meel lagu ilaaliyo oo maxfuuda waa inay ku jiraan axnaaftu waxay leeyihin marka godkan qabrigu meel xoolo lagu ilaaliya maaha marka xirzi mithli kuma jiro maarata kafanka lambar laba kafanka wax laba ma jirta meydka wax ma mulkiyay dhahan saa darteed baa qofkan loo goyno si kale baa loo ciqaabi mooyaane gacan laga goyn maayo dhahan laakiin jamhuur ahlilcilmi waxay dhaheen madhabka shaaficiga iyo maalikiyada iyo culimada kale waxay dhaheen qabrigu waa xirzi wey waa kafanka meel godka loo maarata xirzi weeyaan sida gurigoo kaluu la mid yahay bari guriga dhexdiisa alaabtaad dhigti gurigaada dhexdiisa fadhigaada ama qolkaad seexati baad alaab dhigatay ninbaa intuu u dhacay buu la soo baxay haddii gurigaaduu kala soo baxay xirzi mithliga uu kala soo baxay fakadalika qabrigiina waa lamid weeyaan qabrigu waa kal beyt oo kale weeyaan bay dhaheen lambar laba meydka waxbuu mulkiyaa meydka kafanka asagaa iskale marka xaq buu u leeyahay saa darteed umuna caaisha waxay dhihi jirtay kuwa maaragtay meydka alaabta ka hada waa kuwa maaragtay kuwa dadka annaga nool kuwa wax ka haday la mid yihiin saariqu amwaatina wey yani kuwa annaga dhintay kuwa xada ka saariqi axyaaina kuwa annaga nool kuwa xaday bay la mid yihiin cabdullahi binu zubayr iyo umuna caaisha iyo inay gacanta laga iyo taabiciin badanba inay gacanta laga jarahayo ayay qabaan madhabka xanafiga iyo rag kaloo salafa oo qaar saxaaba ay ku jiraan zayd binu thaabit oo kale cabdullahi bin cabaas oo kale waxay leeyihin laga goyn maayo adugu waa masale khilaafi ah in gacanta laga jari iyo inaan laga jarin laakiin in la tacziiri oo la karbaashi taa iyada liskuma haysto idan ikhwati filaalka waxaanu ka qaadanay ninkaas maaragtay afcaasha lacnada keenta iyo dunuubta lacnada keenta waxaa ka mid a qabriga oo la faagto oo kafanka meydka lagala soo baxo wuxuu ka mid yahay afcaasha xunxun ee foosha xun ee lacnada rabbi soo jiida wey lacana allaahu almukhtafi walmukhtafiyata ama lacana allaahu almukhtafiya walmukhtafiyata ninka iyo dumarka ninka ragga iyo qofka dumarka ee meydka faagta ee qabriga intay faagtaan oo qufaan kala soo baxa kafanka waa malcuuniin wey ilaahay ha lacnado nabi maxamed yiri idan waa ficil aad iyo aad u foolxun weeyaan ilaahina subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa inuu maarata afcaasha lacnada keentay wixii lamidka inuu ilaahay naga fogeeyo idan waa arrin xun weeyaan ikhwati filaahi dhaqan aad iyo aad u xun weeyaan carabtu way yaqaaneen soomaaliduna way leedahay wain kaana ayna badnayn kuwa qubuuraha fagta way leeyihiin oo maarata kafanka kala soo baxa waana ficil iyo aad iyo akhlaaq xun weeye iyo damiir xumo iyo qofkaas iimaankiisu isu u liito ayay ku tusinaysaa marka waa camal khisiisi oo aad iyo aad u liita wey ilaahi subxaana watacaala naga badbaadiyo hal mar ba xadiidka lafdigiisa ku celinaya alxadiidu 735 can caaishata radi allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam lacana allahu almukhtafiya walmukhtafiyata rawaahu lbayhaqiyu fi sunan alkubraa walxadiidu saxiix hada wasala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu